kulanti wacan u wanaagsan dhammaan baad ku xiran channelka kulmiye technology koorsadan waa koorsadii C++ cashirku waa casharkii 23aad maanta waxaan qaadanaynaa function markii laga hadlayo programming function aad iyo aad ayuu muhiimsan yahay waxaa jiro functionku wuxuu u kala baxaa built-in function iyo user defined function built-in function waxaa laga wadaa built-in function waa hadda sidaan oo kale kan hadda main waa function كهذا مين كان وفنشن كان وعنو سو دياري C++ dadkii soo diyaariyaan user defined function kana maanta ayaan qaadanayna qaabka loo qorano maanta ayaan isla arkaynaa function isiga aad iyo aad u muhiimsan yahay functionka markasta software aad diyaarinayso markasta waxaad isticmaali doontaa function maxaa yeelay functionka wuxuu kuu fududeynaa koodkaaga inaad dib aad u isticmaasho marar badan iyo koodkaaga inuu noqdo mid kala go'an oo la fahmi karo shaqaadkeed ayaa waxaad u jajabinaysaa si yar oo fudud kadibna waxaad ku xalinaysaa adigoo isticmaalaysid function waxaa loo qoraa qaabkan waxaad sheegaysaa markuu ku horeeyo return tabka aad sheegaysaa hadda waxaan rabnaa inaan barano mid aan return tab lahayn si aad ugu sheegto functionkaaga inuu return tab lahayn waxaad dhahaysaa void taasoo u taagan functionka wax ma soo celinayo function markuu wax soo celinayo waa isla fahmaynaa kadib marka aad sheegtay return tabka oo kan ah void hadda dhahnay kadib waxaad sheegaysaa magaca functionka waxaan dhahaynaa soo bandhig kadib marka aad sheegtay magaca waxaad furaysaa haddana open bracket iyo closing bracket kadib waxaad furaysaa curly braces curly bracket mid aragtay kadib marka aad furtid gudaha curly braceskan dhexdooda waxaa ku qoraysaa wax allaale iyo waxa aad rabtay hadda anaga functionkeena waa mid aanan wax soo celinin kaliya shaqo ayaan gudaha ku qabsanaynaa si aan u fahanno hadda kood yar aan iskaga qorano kaliya halaan aan ku baroobaynaynaa functionkeena inuu shaqaynayo kadib bal haddii aan hadda rangareeyo koodkeena bal maxaan dhacayaa isla aragno si aad u jeediin waxa uma soo bandhigin sababta waxa waaye markasta ood koodkaaga wuxuu ka bilaabaa main functionkeena sida u jeediin waa bannaan yahay si macnaha aan ugu sheegno waxaa jira waxa la dhahayo calling function kaasoo ah functionka wac si aad u wacdo functionkan waxaad sameynaysaa waxaad sheegaysaa magaca functionka kadib marka aad sheegtay magaca functionka waxaad ku daba qabanaysaa curly open bracket iyo closing bracket kadibna waxaad dhahaysaa semicolon ha hilmaamin semicolon haddii kala qalad ayuu sheegayaa bal hadda aan fiirino sidaa u jeediin waxaa soo baxay tijaabi inuu shaqeynayo functionkeena sidaa u jeediin wuu shaqeynayaa functionka asiga faa'iidada uu leeyahay waxaa waaye inaan mar allaala markii aan u baahano hadda waa iska tusaale kood yar aan ku qoray balse markii aad waxyaabo muhiim oo kale aad lacala ku qorato oo iska dhahdo kale soo bandhig semicolon aan dhaha hadda fiiri hal mar ayaan qoray koodkan balse waxaan isticmaali karaa 100 jeer iyo wixii ka badan intaan anigu u baahana sidaa u jeediin markuu ugu horeyso intuu imaana wuxuu leeyahay soo bandhig kadib intaa la imaana kadib halana la soo bandhigaa wuu soo noqonaa koodka intuu kasoo baxa kadib haddana kanuu arkaa haddana intuu tagaa wuu noqonaa kadib wuxuu soo bandhigaa tijaabo soo bandhig kadibna waxaa haddii lacala ay wax kale ay hoos kugu qornaayeen kood kale haddii hoos kugu qornaay koodkaasaa la sii rangaraynaa hadda wax nooma qorno anaga keliya waxaan fahmaynaa functionka asigoo return table woo jira iyo qaybo kale kuwaas waa isla sii fahmi doonaa keliya halaan waa hordhici functionka sidaa u jeediin hadda waxaan ku qornay kor haddii aad rabin inaad functionkaaga kor aad ku qorto waxaad ku qori kartaa sidoo kale hoos waxaad ku qori kartaa qaybtan hoos balse wax yar ayaa isbedelayo sidaa u jeediin hadda functionkeeni waa soo raray waxaan keenay qaybta hoose hadda haddii aan koodkeena aan rangareeyo hadda error uu soo sheegaa sababtoo ah
ma qaldana koodkeena balse error ayuu sheegaa si aa ujeediin wuxuu soo saaray error sababtoo ah computerka asiga markasta wuxuu ka bilaabaa markii la rangareynayo waxaa laga bilaabaa leenkaas kaasoo ah feelasha soo geli dhammaan ay u baahan yihiin feelasha wax lagu soo bandhigayo kana hubi feelashii la soo gelshay wixii laga isticmaalay kadib wuxuu imaanayaa main functionkan kadib wuxuu arkaa waxa la dhahay soo bandhig looma sheegin koodku wuxuu leeyahay soo bandhig wax jira ma ahan undefined waaye waxaan lama yaqaano leeyahay kadibna uu nagu dhagaa si macnaha aan ugu sheegno soo bandhigan in macnaha koodkeena meel kamida lagu qoray waxaad sameynaysaa keliya inta imaanaysaa kadibna waxaad calaamadeysanaysaa halaas return tabka iyo magaca functionka waa soo koobiyeysanaysaa control c kadib control v kadibna waxaad dhahaysaa semicolon taasoo ah waa kana hadda waxaan dhahaynaa food soo bandhig xawaalaan data typeka kaasoo ah functionka wax ma soo celinayo kadibna magaca functionka iyo kuwan labada bracket iyo open bracket iyo closing bracket kadibna semicolon waa ilmaamin hadda koodkeena waa kana level soo gelinaa kadib intaa la imaanaa okay inta markuu imaado wuxuu leeyahay wuu jiraa functionkan inta ayuu ka raadinaa bal hadda aan baroweyno okay sidaa ujeediin wuu shaqeeyey koodkeena cashirka dambene waxaan fahmi doonaa cashirka dambene marka uu leeyahay return tabka